Toddobaad ka badan ayuu ka socdaa dagaalka gobolka Nagorno-Karabakh oo ay ku muransan yihiin labada dowladood ee Azerbaijan iyo Armenia. Madaxweynaha dalka Azerbaijan, Ilham Aliyev, ayaa wacad ku maray inaysan dagaalkani joogsan doonin ilaa dowladda Armenia ay ka baxaan gobolka Karabakh. Muuqaaladii ugu dambeysay ee laga soo duubay Nagorno-Karabakh waxay muujinayaan in dowladda Azerbaijan ay guulo horle ka gaareen dagaalkii maanta ay ku qaadeen fariisimaha ay ku sugnaayeen ciidamada Armenia. Waxaa jira walaac ay muujinayaan beesha caalamka iyo reer galbeedka, taasoo ay tahay in dowladda Turkiga ay kaalin buuxda ka qaadanayso dagaalka ka socda Nagorno-Karabakh. Dowladda Armenia ayaa ku adkeysanaysa difaaca gobolkan, hase yeeshee muuqaaladii ugu dambeeyay ee maanta laga soo duubay fronta ayaa muujinaya jabka xooggan ay Armeniyaanku kala kulmayaan ciidamada Azerbaijan. Sidoo kale waxaa cad in dowladda Turkiga ay kaalin buuxda ka qaadanayso. Dowladda Turkiga oo diyaarado drones ah ku caawisay dowladda Azerbaijan ayaa kaalin mug leh ka qaadanaysa burburka dabaabaadka Armenia. Dowladda Armenia maanta si xun ayay ugu jabeen furunta hore ee dagaalka. Muuqaaladii ugu dambeysay ee hadda la soo duubay waa goobo fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada Armeniyiinta oo ay gudaha u galeen ciidamada Azerbaijan. Halkan waa 27 talis ama saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Armeniyiinta. Saaka guluf dagaal oo ciidamada Azerbaijan ay ku qaadeen waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan 27 saldhig, waxayna gacanta ku dhigeen hub aad u tiro badan iyo gaadiid ay ka carareen ciidamada Armeniyiinta. Sidoo kale Armeniyiintu waxay ka carareen boqolaal dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askartooda oo ay u suurtagal weysay inay daabulaan ama ay ka qaadaan furmaha hore ee dagaalka. Sidoo kale waxaa jira maxaabiis Armeniyiinta laga qabtay oo u gacan galay ciidamada Azerbaijan. Waxaad arkaysaan dukumiintiyadii iyo caddeymihii muujinayay ciidamada Armeniyiinta. Sidoo kale waxaa laga qabsaday 275 dabaabaadka nooca taangiyada iyo qoryaha lidka diyaaradaha iyo goobta madaafiicda oo ay kaga carareen furunta hore ee dagaalka. Tani waa guushii ugu ballaarneyd ay gaareen ciidamada Azerbaijan. Muuqaalkan ayaa ah muuqaalkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda Nagorno-Karabakh. Muuqaalkan wuxuu si cad u muujinayaa guulaha ay gaareen Azerbaijan iyo jabka ciidamada Armeniyiinta. Absolutely.